fiid wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan sidii aad ku dhagaysateen idaacaddeenii shalay waxaa magaalada Addis Ababa shalay ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland faahfaahin lagama bixinin dulucda kulanka labada hogaamiye hase yeeshee waxaa muuqata in dadka badankiisu ay soo dhaweynayaan wadahadallo dhex mara labada dhinac goordhow waxa ay noo soo socdaa aragtida dadweynaha magaalada Hargeysa balse marka hore wariyaha iyaga Seenab Abuukar ayaa codadkan goordhoweyd waxa ay ka soo qabatay qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xildhibaan Ibraahim Maxamed oo kamid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle fasax ku jooga ee magaalada caasimada Muqdisho haddii su'aasha aad weydiisay waxaan u arkaa wax aad iyo aad u fiican oo horumar lagu gaari karo wada hadal hadduu bilowdo wax badan oo faa'iido ah laga gaarayaa muhiimadana waxa waaye dadka inay sidii Soomaaliya ay heer looga tashan lahay ay ka wada hadleen horumar boqolkiiba boqol ayaan u arkaanay arrintaasida bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu horta waa Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoorreeda la yiraahdaa jooga magaalada Muqdisho haddii aan ka hadlo aragtidayda ku saabsan kulankii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland ku dhaxmaray Addis Ababa ku dhaxmaray haddii aan ka hadlo fikirkayga waxa weeyaan waxa la yiri wadaan reerkeeda gabto waxa la yiri reer kale ma kaasho waxaan qabaa kulankaas inuu wax ka soo baxay aysan jirin wada hadallo Soomaaliya iyo Somaliland dhaxmara oo heshiis keeni kara ama muuqaalkaas badalin karana inay halka ka soo baxayn kana soo bixi doonin waana waxyaalo aan maanta loo fadhin dalka Soomaaliya dhibaatada ka taagan iyo xumaata isha gobolada maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah sida maanta xaaladda ka taagan meel walba dhibaatada maanta ka taagan ee dagaalada iyo iskoorkeenka iyo qabaa'ilada ayaa maanta looga baahnaa dawladda federaalka Soomaaliya inay arrintaas inay wax ka qabataan looga baahnaa oo ay dejiso dadka isku keentay loogama baahnayn in Somaliland ay u booddo intii kale intay isqabasiisay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Xaliimo Khaliif Faarax waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan ka hadlayaa madaxweyne Farmaajo iyo Beexi aragtida iyo maaragtay kulanka ay kulmeen waxa walka fasaalo fiican inay tahay hasa ahaatee isa ka wada hadlin Soomaaliya iyo Somaliland laakiin bilow ay tahay ama is aragti wanaagsan oo dambeyn isku arki doonaan taasna waa u mahadinaya maartay waa wada hadal iyo guul la gaaray haday wada hadleen ay weel wada fariisteen waa soo dhaweynayna insha Allah wada hadalka Soomaaliya Somaliland kasaysa Soomaaliya wada yihiin kalana maarmin kalana go'i karin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan waxaan ku joogaa magaalada Muqdisho deegaanaha waxa ka soo jeeda Somaliland wada hadallada ay musabiixi iyo madaxweyne Farmaajo ku wada yeesheen magaalada Addis Ababa anigu ma arko wax horumar iyo wax faa'iido inuu leeyahay bulshada Soomaaliyeed waayo waqtiga la wada kulmay iyo meesha lagu wada kulmay ayaan diidanahay waayo waxay hadday wada kulmayaan in labada magaalada Soomaalidu degto ama Hargeysa ama Muqdisho ku kulmaan laakiin waxaan u qabaa in ka faa'iideysi dana beela kale ka leeyihiin in la soo galiyo waayo Addis Ababa abiya labadaba u yeeray labadaba kuna siiyay marka nasiib darro waxa ah in dad Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin meel aan dhul Soomaaliyeed ay ku wada hadlaan aad baan uga xumahay inay ku soo aado xilligan waana wax liidima waxaan qabaa aragtida ah inaan wax dan Soomaaliyeed aan laga lahayn kulanka magacaygu waa Maxamed Ali Jaamac waxaan ahay aqoonyahanada reer Somaliland ka soo jeeda special laakiin Muqdisho ku nool anigu absolutely waan taageersanahay waan soo dhaweynayaa kulanka musabiixi iyo Farmaajo dhexmaray waan taageersanahay laba arrimood baan taageersanahay marka hore dadka in horta wax la dhaqaajiyo oo wada hadalku bilaabmo horta marka hore taas waan jecelahay sababta waxa weeyaan marka wax bilaabmaan baa la garan karaa jahada loo socdo waan taageersanahay waxaan leeyahay labada madaxweyneba thank you very much and congratulations baan leeyahay waan soo dhaweynayaa walaasha qaaliyeed marka waxaan leeyahay kulankaas halka laga wado dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ah ee fahmi kara waxa labada dhinac iskaga xiranayna dad aan ha taageeraan oo hala sameeyo guddi farsamaysan oo process bay waxaan maraysaa hala sameeyo sidii dadka Soomaaliyeed isugu keeni lahaa anigu aad baan u taageersanahay waxaan leeyahay maanta waa iftiin weyn oo ummadda Soomaaliyeed soo kordhay aad baan u taageersanahay aan wada hadallo aan heshiino waa
aad baad mahadsantahay VOA iyo Sanaad Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Daahir Cabdullaahi Cumar waxaan ku sugnahay magaalada Muqdisho oo gobolka Banaadir kulanka labada madaxweyne ee Addis Ababa ku kulmeen waxaan u arkaa kulan loo baahnaa laakiin xilligiisa ka soo daahay madaxweyne Farmaajo markii uu campaign-ka uu geliyay wada hadallada Soomaaliland waxyaalihii lagu doortay bay kamid ahayd marka iyadoo hadda ay 3 sano tagtay hal sanana uu u harsan yahay wada hadal hadda la bilaabay anigu ma aaminsan wax faa'iido ma keenin xilligiisa inuu ka soo daahay baan aaminsanahay waagaag dhegeystayaal kuwaasi waxa ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay kulanka ay wada yeesheen madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya magaalada Addis Ababa waxaana warramayeen wariyahayaga Seyna Abuukar dhinaca kalena haatan dhegeystayaal waxaan idin soo gudbin doonaa codadka qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa kaasoo ku aadan isla kulankaasi dhex maray maalintii shalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi haddaba wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule ayaa isaguna mikrofoonka la dhex maray dadweynaha Hargeysa maasanta Khadar magacaygu Aadan Cabdullaahi Nuur waxaan ahay mas'uulka Africa Star Electronics kulanka sidalkiisa labada madaxweyne waxaan u arkaa horta inay si wanaagsan tahay labada madaxweyne kulankoodu because of waxa weey dalayna jaarnahay ay ku kulmeen waana dal la oran karo dhexdhexaad buu ka noqon karaa barnaamijka Somaliland iyo Soomaaliya waayo maanta waxa loo soo dhaweeyay labada madaxweyne si isku mid ah ahayd mansab isku mid ah lagu soo wada dhaweeyay Allahumma salli ala Muhammad marka waxaan oran karaa yaani imika wada hadalkana rajo la sii wadi karo ayaa meesha ka soo muuqato waxa la yimid mustaqbalkiisa reer Somaliland aad buu soo dhaweeyay maanta sarjeen African qawaaniga waad mahadsantahay nin kale oo isnaa dhalinyarada magacaaga magacaygu Istaan Axmed Waayso seed u aragtaa kulanka madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan u arkaa inay qalad tahay oo madaxweynaha wadanka Itoobiya nima aqoonsana waa kii hore abay uga tagay magaalada Muqdisho ilaaday waan maal gashanaa dekedahan magaalada ku yaala dalka Soomaaliya xataa ilaa Somaliland tii berbero ku taray waana qalad waanu ka soo jeednay madaxweynaha wadanka Itoobiya lagu qabtaanba kulankaas ka dhacmeen inay wadamada kale amba Tugriga amba Imaaraadka ay waaweyn dawladda awood loo aqoonsan karto ku dhacda way wadankan Itoobiya Soomaaliya dambu ka leeyahay anigu saasaan arkaa magacaaga walaalaha bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xasan Maxamed Xamid madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya waxaan u arkaa kulankooda khalad baan u arkaa sababtoo ah Somaliland iyo Soomaaliya marka dhinac laga eego sida kale codub isku yihiin dadka Somaliland iyo Soomaaliya isma ogola madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland kulankooda khalad baan u arkaa seed u arkaysay kulankii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dhex maray Addis Ababa magacaygu waa Dayib Maxamuud Aadan haddii aan su'aasha ku soo dhawaado waxaan u arkaa su'aasha horta Somaliland in si dadban loo aqoonsaday baan u arkaa 5 arrimood oo ku saayid ahaa soo dhaweyntii madaxweynaha oo ay koow ka tahay inuu ka haystay taliyihii ilaalinayay watay oo calanka Somaliland loo suray halkii soo dhaweyntii dalka Itoobiya wadada loo xiray heer madaxweyne baabuurtii uu watay mid walba calanka Somaliland ka babanayay anigu waxaan u arkaa horta in aqoonsigii qayb aynu helay wada hadalkana waan soo dhaweynayaa waxa weeyaan kolka meesha lagu wada hadlayay ee madaxweynuhu tagay ama saa loogu soo dhaweeyay waxa ay meel ay Afrika oo dhan iskugu timid wala magacaaga sheeg magacaygu waa Xaliimo Xasan waan taageersanay walaalayn kulanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya waayo waa laba dawladood oo kala madax banaan inta waxa la gaaray xilligii la kala guran lahaa Somaliland iyo Soomaaliya marka waa si wanaagsan inay wada kulmaan wada hadlaan ay tashadaan ay kula wixii ka dhaxeeyay ay ka wada hadlaan Maxamed waxaad ka warantaa sidoo aragtaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi iyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ku kulmeen magaalada Addis Ababa sidoo aragtaa rayga bismillaah horta marka hore waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa kulanka labada madaxweyne taasoo soo dadajinaysa kala gurashada Somaliland iyo Soomaaliya waayo liyo marka laba ishayay ama isku jiri jiray ay kulmaan waa ama heshiin ama aynu kala tagno waliba imika waxay u badan tahay maanta Soomaaliya waynu ognahay halka ay marayso Somaliland waynu aragnaa marka maanta waxay u badan tahay inaynu tubtii kala tag aynu cagta saarnay taas ay soo dadajinayso markaad eegto waqtiga madaxweynaha Somaliland qaabkii loo qaabilay loogu soo dhaweeyay maxaan ku raahdaayay Itoobiya
waxay taasina fariin cad hay u tahay in ay tahay wada hadalladaas ay noqonayaan kuwii lagu kala tegayey wallahi runtii aad baan usoo dhaweynaya kulli waa labada madaxweyne oo soomaaliyeed walow ay qadiyeen haddana jirto oo separation jiro laba wadan oo kala go-ay 1991 haddana waxaan odhan karaa kulli ummad soomaaliyeed oo islaami aad baan usoo dhaweynayna aadna waan ugu faraxsannahay inay is ashartaan insha allah saasaan aan ugu rajeyna insha allah اعتراف wanaagsan aad baad u mahadsantahay magacaaga waxa ay kulmeen maxamed cabdullaahi Soomaaliya sidee hagaagsan oo arrinta wallahi kulli horta Somaliland waxa weeyaan wadan mustaqil oo yani ka go'ay Soomaaliya haddii ay kulmeen macnaheedu maaha in labadii wadan la isku darayo laakiin waxay u kulmeen maxandaha siyaasadun ayun bay noqon kartaa iyo sidii labada wadan mustaqilnimadu kala qaadan lahaayeen fadlan maxamed cakuule v o a hargeysa